magaalada Aws ee wadanka Denmark waxaa lagu qabtay shir aad iyo aad u ballaaran shirkaasna waxaa ka soo qayb galay Soomaali aad iyo aad u tiro badan shirkaasna waxaa looga hadlayay dhibaatada Soomaaliya maanta ka jirto shirkaas waxaa dawladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiyay safiirka Soomaalida UNHCR u fadhiya Maxamed Ismaaciil Yuusuf dawladda Denmarkna waxaa ka socday madax kale oo aad u tiro badan shirkaasna waxaa loo gurfeynayay dhibaatada Soomaaliya ee marxaladda maanta ay ku sugan tahay shirkan waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadaha ka jira wadanka Denmark Yuusuf oo macluumaadka Geneva nooga yimid oo United Nations macluumaadka noo fadhiya dawladda federaalka noo fadhiya baartay Geneva oo hadda macluumaadka martina waa karfookeen waa maasintii السلام عليكم سلامة إسلام ككدب ولا لي الواح الشرف قارية إن ما أنتهى كان وذي شغله والله واحد استوى مقادير الله واحد كلون آد وفرح سنة حي ضد صناعي ذو انت هاتير الله إك وهالميل سويني waxaan mahad u jeedinayaa ururadii badnaa waxa lagu tiri hadii aan qaldanayn 12 soo sida ma ahayn oo qaban qaabiye shirkan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa howlwadeennada ka socda dawladda Denmark oo halkan inala jooga taasoo muujinaysa oo astaan u ah sida dawladda Denmark ay u danaynayso arrimaha Soomaaliya ama ha noqoto dalkeena ama jaaliyadaha Soomaaliyeed oo halkan Denmark ku nool waxaan jeclaan lahaa in mahadda codsado 12 urur oo shirkan qaban qaabiyay in ay halkan ka sii wadaan ay kordhiyaan wada shaqayntooda wada jirkooda waxay isweydiin mudan oo inta nooba waxaan u maleynayaa in badan baan qurbaha ku nooleen maxaa ina keenay qurbaha inta badan dadku waxay u safraan ama haajiraan qof waxbarasho doonaya qof nolol iyo shaqo iyo mustaqbal iyo qof ka carara dhibaato haddii ay dhibaato dalkiisa ay ka dhacdo waxaan jeclaan lahaa inaan dul maro laba qodob maadaama anigoo tixgelinahay waqtigoo kooban hadhow wixii su-aal ah dabcan diyaar baan lahay waxay la tahay markii la isweydiiyo ilaa inta badan waynu ku jahwareeraawo waxa weeye su-aasha ah warma runbaa in aad diin wadaagtaan haddaad Soomaali tihiin inaad isku dad tihiin inaad isku dhaqan tihiin inaad isku luqad tihiin waxaan u maleynayaa intiina meesha fadhida in su-aasha noocaas oo kale ah qof kastoo idin ka mid ah in la weydiiyey waxay la tahay in la wada ogsoon yahay in intaasoo astaamo ay ummadda Soomaaliyeed leedahay ay tahay astaan ayaan lahayn dalalka kale Afrikaanka ee muqaaradda wadaagno haddaba marka maxaa keenay burburka halgankii xornimo doonka dib ugu noqon mayno wayna wada ogsoonahay raggii iyo dumarkii halgankaa ka qayb qaatay runtii waxay mudan yihiin inaan qalbiga uga duceyno iyo inaan ammaano waxay la tahay sababta ama sababaha mid ugu muhiimsan oo burburka keentay inay tahay inaan la isqaayibin nidaamka Soomaaliyeed ama dhaqankeenu leenahay ama taariikhdeenu leenahay iyo nidaamka dawliga ah waxaan ka hadlay waxaan u maleynayaa inuu isla fahansanahay waxay la tahay in arrintan ay sabab u tahay ugu badnaan waxa keenay burburka
كوي سجاشن كي بربر كي دعاي قف كست موادين الصوماليين لبا قلب أي أصو هراي وهكسدو أفريقيا لاد محلي هذا الريسورسز تاسو دينتنا بركيسن iyo hada qof kasta reer buu ka dhashay identity-giisa oo reer ahaan labadaasba nasiib darro waxaa loo adeegsaday siyaasad iyo طبعا xukun oo madani ah waxay arrintu sidaa usoo socoto waxay ila tahay waxa ugu wanaagsan oo jawaabta maxalka ugu wanaagsan oo laga gaari karo waxa weeye inagoo طبعا diinteena barakaysan aaminsan oo ku xiran inaan isqaybno oo la iswaafajiyo labada nidaam sababtoo ah hadda kaligeen dalku kuma noolina waxa weeye adduun iyo ummad kale ayaan wax la wadaagnaa wadaagaasna wuxuu u baahan yahay nidaam la isku afgaran karo nidaamka la isku afgaran karana waxa weeye nidaamka dawliga marka waxa Afrika lagu yiraahdo institutions ka haykalka dawladda in la xoojiyo la adkeeyo markaan u soo noqdo dadka dibadda ku nool waxa weeye inta badan waynu ogsoonahay waxa laga doodaa waa laba qodob waxa weeye assimilation iyo integration Afrika lagu yiraahdo markaan Soomaaliga isku dayno inaan maaragtay ku fahanana waxa weeye ma waxaynu ku milnaa oo aan ku mid noqonaa dadka inuu la noolnahay ama dalka aynu soo haajiray mase inagoo dhaqankeena iyo diinteena ku dhagan oo maaragtay ku wanaagsan waan ummadda kale wax la qaybsanaa waxay la tahay waxaan habayaa shaki ku jirin inay wanaagsan tahay oo ay habboon tahay tan labaad sababtoo ah qof aan identity haysan oo identity lahayn oo dhaqankiisa diintiisa ka taga dawaa inuu garan karaa dhibaatada maaragtay qofkaasna ku dhici kara ummadda oo nool yahay oo geyn kara waxa aad ii taabatay runtii waan aad ugu farxay barnaamijka oo magaaladan laga fuliyay oo